beesha ogaadeen ayaa 24 saac oo kooban u qabatay in Somaliland ay ku sii daayaan xasan Ciraaqi oo u xiran haddii taa la waayana waxay leeyihiin cawaaqib marna aan la filan ayaa dhici doona 24 saac soo socota hadda la soo deeyay Korneyl Xasan Ciraaqi cawaaqib xumo aan la mahadinin oo laga salaayo baa ka dhabay doonto la yiraahdo insha Allah taala arinta foosxun oo maamulka waqooyi galbeed Hargeysa ay ku kaceen fidno aan qaboobin inay keenin doonto arrintii xasan Ciraaqi oo waji cusub yeelatay iyo sidoo kale macluumaad dheeraad oo ka soo baxaya qorshaha Somaliland maxaa ka jira inay Somaliland rabto inay ku bedelato Faysal Cabdi Bootaan maadaama labada nin ay ka dhasheen beelaha waa beelweynta Daarood waxaan soo gudbinaynaa arrimaha jira maxay Somaliland ku xiraysa oo ninkan ay ku haysataa hanjabaadda ka soo baxay beeshiisa samaxay ka dhigan tahay si guud arrimihii ugu dambeeyay ee dhacdadan ayaa saaxiibayaal idin la wadaagayna laakiin daawada sidee ay kula tahay ma lagu bedela karaa Faysal Cabdi Bootaan xasan Ciraaqi yani labada nin ma la isku xiri karaa arrintooda aragtidaada reeb fariintan meel dheer gaarsii halkan ku soo biir si aad u hesho xogaha degdega ah aynu ku bilownay saaxiibayaal iyadoo xasan Ciraaqi oo ahaa taliye ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliya isla markaana isagoo booqasho ku jooga dawladda deegaanka Soomaalida ciidan Somaliland ay ka qabteen xuduudda labada dhinac ee Wajaale ilaa haddana Somaliland uu u xiran yahay ayaa arrintiisu ay waji cusub yeelatay hanjabaad culus ayaa ka soo baxday tolka uu ka dhashay xasan Ciraaqi laakiin waxaan ka hormarinayaa Somaliland ayaa hadda la leeyahay waxa ay diiday wada kasta oo lagu sii day lahaa xasan Ciraaqi iyada oo xabsigii xasan Ciraaqi lagu hayay hadda laga sii gudbiyay oo xabsigii ugu adkaa Somaliland lagu xiray maamulka Somaliland ayaa la leeyahay waxa uu diiday qorshe walba oo xukuumadda deegaanka Soomaalida ay samaysay si xabsiga looga sii daayo Korneyl Xasan Ciraaqi oo ku xiran magaalada Hargeysa isku dayo ay sameeyeen maamulka dawladda deegaanka Soomaalida xukuumadda laamaha amniga iyo odayaasha ayaa dhammaan fashil ku dhamaaday kaas oo ahaa in la keeno magaalada Wajaale xasan Ciraaqi isla markaana lagu wareejiyo maamulka dawladda deegaanka Soomaalida waxa maalintii maanta ahayd ama maalintii shalay ahayd la sheegay waa saaka waxa la sheegay in la geeyay xabsiga Mandheera ama xabsiga Mandheera ee ugu weyn Somaliland waxaana halka ku xiran ama ay kula xiran yihiin maxaabiistii laga qabtay dagaalkii Hiil Harti ama beelaha dhulbahanta iyo Hiil Harti dagaalka Somaliland iyo dhinacyada dhexmaray halkii ay ku xirnaayeen ayaa ninka lagu xiray sida la sheegay isku dayo ay sameeyeen hay'adaha amniga ee maamulka dawladda deegaanka ayaana fashilmay qoyska Korneyl Xasan Ciraaqi ayaa dhinacooda sameeyay dadaalo dhan walba balse laga qoosay in hay'adaha Somaliland ay sii daayaan xasan Ciraaqi taliyaha guud ee ciidanka Somaliland Korneyl Nimcaan Yuusuf Cusmaan ayaa ka hor yimid sida la sheegay qorshe walba oo lagu sii day lahaa xabsigana looga soo saari lahaa xasan Ciraaqi waxaana hadda la sugayaa Cabdiraxmaan Cirro oo ku maqan dalka Imaaraadka Carabta Somaliland waxay xasan Ciraaqi u haysataa maxaabiista laascaanood ku xiran iyo taliyihii ciidamada Somaliland Faysal Cabdi Bootaan sida xoga soo baxa ay leeyihiin Somaliland waxa la leeyahay Faysal ayaba ninka rabtaa inay ku bedelato ku gorgortanto ilaa ninka laga sii daayana iyaduna way haysanaysaa haddaba arrintaas suuragal ma tahay